waxaan idin wadaa barnaamijka aqoon kororsi ayaan idin wadaa. Barnaamijka aqoon kororsi mataqaanaa waxaan idin barayaa koorsooyinka freega sida loo helo iyo sida luuqadaha bilaashka sida lagu barto adoo luuqad bilaash saa u baran lahayd. Waxaan kuu sheegayaa luuqad bilaash haddaa koorsooyin bilaash haddaa rabtid website badan ayaa jira oo laga barto. Qaar badan oo hore uga soo sheekeeyay kuwa jaamacadaha, kuwa iska dhexdhexaada, kuwa dhexdhexaada ku baraya caawa iska caadiya. Kuwa iska caadiga marka ugu horeysa waxaad tegaysaa Tronka ayaa tegaysaa. Website-kan waxaa la yiraahdaa Khan Academic ayaa la yiraahdaa. waxaa qoraysaa halkaas waxaad ku qoraysaa Khan Academic ayaad qoraysaa. kadib sidan ayaad ugu dhufanaysaa. halkan ayaa waxaad ka dhiganaysaa halkan ayaa desktop ka dhigo meeshaan desktop ka dhig. Khan Academic waxaan u maleynayaa nin Hindiya ayaa iskale u maleynaya Khan Academic. ninka kolba halkan sawirka meesha ka muuqda ninka iskale ayaa website-kan ayaa iskale u maleynaya Khan Academic. ninkan ayaa la yiraahdaa. Website-kan waxaad ka helaysaa koorsooyin badan oo free ayaad ka helaysaa oo bilaash ah oo lacag la'aan ayaad ka helaysaa oo mataqaanaa isdiiwaangelin kaliya kaa rabo isdiiwaangelinaysaa bas. marka website-kan waxaa filayaa inaad ka faa'iideysan doonto. halkan ayaad tegaysaa login ku qoran tahay kadib waad ka diiwaan halkan course ayaa ku qoran waxaad qoraysaa course searching koorsada aad rabtid ayaa searching garaynaysaa kadibna wuu kuu soo saarayaa. waxaan filayaa inaad fahantay aan filayaa website-ka qaabka loo isticmaalayo. website-ka saddexaad website-ka labaad aan dhahay waxaa waaye Duolingo. Duolingo hadda ka hor inaan sharaxay ma aqaan Duolingo, laakiin Duolingo wuxuu kuu fududeynayaa inaad mataqaanaa inaad luuqadaha baratid si free inaad luuqado badan ku baratid ayuu kuu fududeynayaa Duolingo. luuqadda ayaa jeceshay aad baranaysaa weliba luuqadda wuxuu kugu barayaa isaga sawir ayuu ku tusayaa. wuxuu ku leeyahay sawir naag sawiran naagta sawirkeedu soo qaadanaa wuxuu kusoo aqorayaa hadba haddaad German baranaysid haddaad Talyaani qoranaysid ninka shayga walba magaciisa sawirkiisa ku agyaala. sawirkii marka aragtid shayga waxaan sawirkii shayga waa isleeyihiin moogta marka saas ayaa ku fahmaysaa. adoo macala luuqad English adoon aqoon macala waa baran kartaa. wayda sawir uu ku dhigaya sawir markuu halkan man markuu ku dhaho nin ayuu ku ag sawirayaa markuu woman markuu dhahana naag ayuu ku ag sawirayaa. marka saas ayuu ku waxaynayaa kadibna gmail-ka ayaad gelinaysaa waa iska diiwaangelinaysaa kadib gmail-ka ayaad tegaysaa kadib waa soo verify garanaysaa. aniga hadda kahor ayaan verify gareeyay gmail-kaygana hadda haddaan tago get iyo message ayuu leeyahay message-yadaada hel khaldan. aniga waa kan Duolingo waa kan hore ayaan iska diiwaangeliyay Duolingo hore ayaan ugu xirnaa luuqado. hadda halkan haddaan qorso waxaa ku qoran continue to learn sii wada waxbarashadaada ayaa ku qoran waan taabanayaa fiirso. aniga mar labaad isma diiwaangelin karo inaan kaga kaa tuso maahan. anigu luuqadda Jarmalka ayaan baranayay marka halkan waxaa ku qoran basic ayaa ku qoran ma basic aa rabtaa
basic miyaa rabtaa mise ma taqaanaa mise xoogay ayaad ka taqaanaa? Ani hadda basic ayaan dooranayaa. Start ayaan leeyahay kadibna start a practice ka bilow ayuu leeyahay. hadda waa kan wuxuu leeyahay ani halkan mataqaanaa waxaa marayay waa kasoo gudbay aniga practice ayaan marayaa. Since and margin wuxuu ku leeyahay you are girl, aduu maxaa tahay gabar af German ku leeyahay. Halkan check meesha ku qoranta ayaa taabanaya. haddaan khaldo tana doorana ugu horeysa tan ugu horeysa hadday saxan tahay calaamad cagaar ayuu saaray, haddii kalena khalad ayuu leeyahay. fiirsaade marka correct solution waad khalad ayuu leeyahay. waad khalad. Trinkt er? halkan codki waaye. Trinkt er? halkan Wasser biyo waaye. Wasser. waa biyo. biya laga wadaa. marka waxaa saas ayaa u baranaysaa. waxaan u malaynaya inaad fahantay applicationka website-ka sida loo isticmaalayo. fadlan subscribe ta iga ilaawin.